بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkaas ka sii wadaynaa casharadii Omaya Exchange ay ugu talagashay dhammaan bulshada ku xiran ee rabta inay wax ka fahanto ama wax ka barato cilmiga cryptocurrency-ga. Maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu alla yiraahdo wax la yiraahdo decentralized exchange oo loo soo gaabiyo DEX ama DEX loo soo gaabiyo. runtii wuxuu ka mid yahay markii la fiiriyo taxana oo gaaban oo uga hadli doono waxyaabaha decentralized-ka laga dhigay sida decentralized exchange, decentralized finance iyo sidoo kale decentralized applications oo DApps loo yaqaano. waxaan mar walbaba casharada aan soo dhigno waxaa ugu talagalnay dad maxaa la dhahaa basic ah oo aanan cryptocurrency waxba ka aqoonin rabaanna inay wax ka fahmaan haba iyaysan rabinba hadday rabaan inay si guud maxaa la ama inay kusii xeel dheeraadaan laakiin in wax badan aad ka fahanto cryptocurrency waa maxay iyo waxyaabaha ku hoos duugan iyo sidoo kale fikradiisa weyn ee decentralization-ka ah ina wax badan ka fahanto. maanta waxaan qaadan dhigi doonaa wax loo yaqaano decentralized exchange. Decentralized exchange markii la fiiriyo laba qodob ka hadli doonaa horta videogan. qodobka koowaad wuxuu yahay horta maxay tahay decentralized exchange, sidoo kalena waxaa ka hadli doonaa faa'iidooyinka ay dheer tahay markii loo fiiriyo centralized exchanges-ka hadda jiro. markii loo fiiriyo decentralized exchange-ga maxay dheer tahay, maxaa faa'iido ah oo ku jira qofka in uu decentralized exchange uu isticmaalo. labadaas qodob qaada dhigi doonaa. waxaan ka hormaraynaa marka koowaad maxaa la dhahaa decentralized exchange. si guud hadda kugu sheego decentralized exchange waxaa la yiraahdaa waa sarifka ama maxaa la dhahaa bitcoin ama cryptocurrency si guud ama coinska iyo tokenska cryptocurrencies la isku dhahaye labadooda in aad isku bedelan karto adiga oo aanan isticmaalaynin maxaa la dhahaa central authority adigoona u dhex marayn ama cid saddexaad iyadoonan idin dhex joogin inaad qof kale aad ka sirifan kartid. That's the decentralized exchange. haddaba waxaa loola jeedaa waxaad coinskaaga iyo tokenskaaga aad ku trade gareyn kartaa ama aad ku sarifan kartaa iyada oo aanan middleman uusan idin dhexaynin. macnaheedu waxay tahay no central authority. limitations laga yaabaa inay leedahay, tusaale ahaan maxaa la dhahaa blockchain-ka in ay dhibaato kaaga imaato oo blockchain waxaa laga yaabaa cryptocurrency oo blockchain-kana saaran inaadan u bedeli karin blockchain kale cryptocurrency saaran. limitationskaas laga yaabaa inay yeelato oo waxaa qasaba in maxaa la dhahaa waxyaabaha la isku bedelayo inay hal blockchain ay saaran yihiin inkastoo gadaal xal lagala gaaray. laakiin si guud waxaa rabaa inaad u fahantid decentralized exchange waxay tahay. haddaba waxaan u soo galaynaa qaybtii labaad oo ahayd maxaa benefits ah ama faa'iido ah ay dheer tahay waxaan loo yaqaano centralized exchanges. hadda waxaa jira centralized exchanges waxaa ka mid ah sida Binance iyo Coinbase iyo waxyaabahaas. maxay kaga duwan yihiin ama maxay kaga faa'iido badan tahay? saddex qodob baa sheegi doonaa. hal qodobna uu ku hoos qarsan yahay oo macnaha qodob ahaan aanan u qaadan karin, laakiin saddexdan qodob ugu waaweyn. kow waa in aysan maxaa la dhahaa decentralized exchanges-ka aysan ku weydiinaynin wax loo yaqaano documentskaaga sida waxa loo yaqaano KYC ama know your customer waxa loo yaqaano. know your customer waxaa badanaa centralized-ka hadda markii la joogo dunida caadiga iyo serviceska caadiga markaa sameynayna ama cid kasta la xiriiraysid platform kasto waxayna weydiiyaan wax loo yaqaano documentskeena sida ina adiga addresskaaga maxaa la dhahaa cadaysid, sidoo kale adiga shakhsi ahaan identity-gaaga ina cadaysid oo documentisa soo gelinay. haba ugu yaraato kuwa ku weydiinayo in aad markaas si aad u isticmaalisid platformkooda aad gelisid emailkaaga iyo sidoo kale passwordkaaga haba ugu yaraadaan kuwa ku weydiinayay. haddaba markaad joogtid decentralized exchanges-ka ma ku weydiin doonaan ama kama jirto wax la yiraahdo sign up ama log in ma jirto. waxaad kaliya platformkaas booqan doontaa, halkaas hawshaada ka qabsan doontaa. qodobka labaad ay maxaa la dhahaa ku kala duwan yihiin ama ay uga wanaagsan tahay decentralized exchange-ga centralized exchange-ga wuxuu yahay in aysan jirin wax loo yaqaano central authority, inaysan dhexdiina ay jirin. central authority markaa ka hadlayna waxaa ula jeednaa cid inaysan haynin maxaa la dhahaa ama bangi ha noqdo ama ashqaas kale oo application kale ha noqdo waxay rabaan ha noqdaane aysan jirin cid haysata private key-gaaga iyo public key-gaaga. sida hore usoo sheegnay videoyaasha hore markii aan kaga hadlaynay
tusaalooyinka exchangeska jiro Binance oo kale ama Coinbase-ka waxay isticmaalaan ama ay ku hayaan oo serveradooda waxa ku jiro adiga private key-gaaga so marka decentralized exchangeska way ka madax banaan yihiin waxaas oo adiga waxa qasaba inaad private key-gaaga iyo public key-gaaga adiga haysto oo macnaheedu waxay tahay adiga wallet-kaaga haysto oo wallet iyaga kagama dhex furno kaliya waxa sameyn kartaa inaad wallet iyaga ku xiriirisid oo connect wallet aad dhaxdid qodobka saddexaad waxay tahay oo asna maxaa la ay uga fiican tahay decentralized exchangeska ay uga fiican yihiin centralized exchangeska waxay tahay in aad maxaa la lahaa waxa loo yaqaano inuu yahay faster transactions oo ah inuu ka degdegsiimo badan yahay oo hadda waxaa aragnaa centralized exchangeska iyo markii la isku fiiriyo decentralized exchangeska way ka fastna way ka yihiin oo way ka dhaqsi badan yihiin oo daqiiqaday qaadanayso aad u yar milliseconds qaarkood sidoo kalena waxa loo yaqaano qodobka ka hoos joognaa sheegayna waxay in ay sidoo kale lower fee ay tahay ay ka qiimo yar tahay hadaba fast iyo lower fee ay isku darsanay macnaha oo qiimaha markii aad centralized exchange isticmaalaysid waxa aad uga qiimo yar decentralized exchange markaa isticmaalaysid decentralized exchange wuxuu qayb weyn ka qaatay wax loo yaqaano decentralized financing oo aan videoga dambe ama cashirka dambe uga hadli doono oo isagana runtii ah mawduuc weyn oo asna la imaaday markii maxaa la adeegyada laga dhigay decentralized isagana goonidiisa ku sharxi doona videogiisa ku sharxi doona laakiin wuxuu qayb weyn ka ahaa decentralized financing wax loo yaqaano hadaba wax walba oo dunida yaalo waxay leeyihiin wax loo yaqaano downsides shay kasto benefit leh hadana downsides laga yaabaa inuu yeesho ama wax loo yaqaano waxyaabo kale oo looga fiican yahay sida hadda markii la fiiriyo decentralized exchange oo kale waxyaabaha ay downside-ka ku leedahay waxa kamid ah inaysan jirin wax loo yaqaan no support team sida tusaale Binance oo kale waxay leeyihiin support team ay leeyihiin Omai exchange hadda oo maxaa la lahaa iyadana cashirkan aad ka helaysaan YouTube-keeda iyadana waxay leedahay support team oo 24 saacadood maxaa la lahaa 7 maalinba aad ka heli karto in laga caawiyo issue walba markaas ku qabsado aad soo wici kartid xafiiska ay iman kartid support team ay leeyihiin laakiin markii la joogo decentralized exchangeska ma lahan wax loo yaqaano support team ma laha inkastoo ay lahaan karaan ama ay leeyihiinba maxaa la lahaa communities ay leeyihiin oo dad oo community ah laakiin ma ahan dad loo xil saaray ama lacag lagu siiyo in adiga ay ku adeegaan waa dad kaliya maxaa la adiga shakhsi ahaan babuska aad ka rabtay decentralized exchange-gan u soo galay laakiin ku caawin doona laakiin dad ku qasban maaha inay ku caawiyaan community-gaas ay dadka badan adeegsadaan sidoo kale maxaa la dhahaa downside-ka labaad ee leedahay waxay tahay in ay maxaa la dhahaa ku qasban tahay inaad isticmaashid wallets online ama hot wallets wax loo yaqaano inaad isticmaashid iyadana maxaa la dhahaa waxaa laga yaabaa inaa macnaha waa ku qasbantahay mar walbaba inaad kusoo xirtid oo iyaga gudahooda wallet ma lahan wallet caadi adoo leh aad la soo geli doontaa aad ku xiran doontaa waxaa laga yaabaa iyadana inay taas dadka oo cold walletska isticmaala ama paper walletska isticmaala inay downside ahaan dhankooda ay u tahay tan u dambeyso oo iyadana maxaa la lahaa aan isdhigi karo downside ee u noqonaya waxay tahay in wax loo yaqaano code-kooda ama code-kan oo decentralized exchange-ga ku qoran yahay inuu open yahay taasna ay keeni karto labada dhinacba faa'iido inay u noqoto labada dhinacba macnaha inay safe do xadeynay dhahan labada dhinacba inay saameyso sida inuu faa'iido u noqdo inuu downside-na u noqdo oo sidee faa'iido ugu noqonaa code-ka maadaama uu yahay code furan macnaheedu waxay tahay maxaa la waa la horumarin karaa inkastoo aanan smart contract ahaan ama ruleska iyo shayaasha u dhacayaan waxba laga bedeli kari laakiin horumar badan ee sameyn kartaa oo markuu sheegayahay open source waa faa'iidadu leeyahay dareem karna haddana isla iyadii waxay noqon kartaa dhanka kale oo downside ay noqon kartaayo waxaa laga yaabaa in maxaa la lahaa maadaama codekii uu ku qornaa systemkan ama applicationkan ama waxaan oo dhan ay ku qornaayeen haddii qof kasta uu heli karo oo dad waxaa jira aqoon leh oo maxaa la lahaa hackerskaas hadday helaan ay ka helaan meelo uu ka fudud yahay systemka ama uu ka qodqodan yahay iyakana ay si fudud markaas ay ku dhibaateyn karaan laakiin wax la baciidsanayo waayo oo aad u fog haddaba marka downsideska iyo benefitska maadaama aan ka hadalnay iyadana waxaa mudan in laga hadlo wax loo yaqaano sidee u shaqeysaa ama sidee u shaqeeyaa decentralized exchange
ma rabo in aan si guud ama si xeel dheer aan usii galo decentralized exchange-ga iyo waxyaabihii iyo siduu u shaqeeyo iyo mid kastaba technical ahaan iyo aan ku wareeriye ma rabo, laakiin si guud waxaa u sheegi doonaa qaabka guud u shaqeeya. laba qaab u shaqeeya ama decentralized exchangeska laba mid ay isticmaalaan. midda koowaad ah ama macnaha way ku kala duwan yihiin, macnaha labadaba inuu isticmaalo qof qasab maaha, ama decentralized exchange-ga inuu labadaas isticmaalo qasab maaha, laakiin labadaas mid kamid ah ay isticmaalaan. midda koowaad waxaa la yiraahdaa order book methodology ama method. order book waxaa la yiraahdaa book lagu qoraayo orderiska dhammaan, maadaama shaygan uu decentralized yahay, adigana lacagtaada ay walletkaaga kugu jirto, una baahan tahay inaad exchange aad samaysid, sarif aad samaysid ama trade inaad samaysid oo aad soo geshid platformka. markaa platformka soo geshid waxaa samayn doontaa waxay samaynayaan kuwa noocan isticmaalo in book ay ku qoran tahay dhammaan orderiska order limit iyo market ay ku qoran yihiin. oo tusaalahaan waxaa dhihi doontaa adiga waxaa sheegi doontaa inta qiimo aa wadatid, waxaa dhihi doontaa intaasoo coin aa wataa ama intaasoo token aa wataa, qiimahaasaana ku rabaa in liigu bedesho ama maxaa la sarifkaas layga siiyo. waa lagaa diiwaan gelin doonaa, orderkaas buuggii lagu qori doonaa. dhammaan dadka ku jira markaas decentralized exchange-gan soo booqda way arki doonaan. qofkii markaas uu arko in uu maxaa la dhiilkaas uu u wanaagsan yahayna ama dhiil fiican uu u yahayna uu kaaga bedelan doonaa macnaha. laakiin waxay qaadan kartaa waqtigay qaadan kartaa iyadana, oo in maxaa la lahaa qof uu la sugo. sidoo kalena waxay keeni kartaa ama ay leedahayba in oo de third party ama qof kale aa ku xiran tahay, oo adiga ina exchange samaysay rabtay qof saddexaad ama maxaa la lahaa platformkii adiga iyo qof saddexaad inuu soo aqbalo oo acceptance sameeyo inaa uga fadhiisidee noqon kartaa macnaha. laakiin waa methodology ay qaar in yar ay isticmaalaan oo decentralized exchangeska ah. methodka labaad ay isticmaalaan ama methodka kale ee inta ugu badan decentralized exchangeska ay isticmaalaan waxay tahay automated market maker. automated market makerka waa sida liquidity pool oo kale. waxaa lagu leeyahay adiga uma baahnidba in maxaa la dhahaa inta orderkaaga aad dalbatid kadib aad sugtid ilaa uu qofkaas soo aqbalayo. waxay samayn doonaan pools ay samayn doonaan ama liquidity pool waxa loo yaqaano. poolskaasaa lacagta la soo gelin doonaa, halkaasaa marka adiga si automated ah mar kastaba loo aqbali doonaa. oo mar walbaba suuqii oo kale waaye, macnaha mar walbaba kala bedelashada halkaas ay ka dhici doontaa si automated ah. wax walba oo decentralized exchangeska ku dhex jiro ama heshiisyada la galaa iyo waxaas dhan waxaa waaye wax loo yaqaano ethereumka markaa kasoo hadlaynay smart contractiga aa sheegnay. smart contract waa code oo labada qof u dhexayn doona, waa legal contract camal waaye. codekaasaa marka wuxuu qeexi doonaa waxa la iska rabo, wax kastoo dhacayo isagaa qeexi doona, labada qof ay ku heshiiyaan kadibna sidiisa u dhici doonaa macnaha iyadoo waxba iska bedelin. booskaas marka smart contractiga ayaa wuxuu u taagan yahay boodkii central authority-ga. meeshii central authority anaga aan ku kala bixi lahayn awal, hadda waxaa noo taagnaanaya codekaas. labada dhinacba mar kastaba iyagoo raaliya ay barnaamijkaas dhammaysan doonaan. waxa ugu weyna marka in laga sheego u baahan decentralized exchange intaas u ahaa. haddii aad soo koobo decentralized exchange waxaa la yidhahdaa sarif ama exchange oo aad ama kriptahaaga ama bitcoinkaaga ama coinkaaga ama iyo sidoo kale tokenskaaga uga bedelan karto tokens iyo coins kale adiga oo aanan isticmaalaynin central authority adigoona u dhex maraynin ama central qofun wuxuu noqdaba ha noqde aadan u dhex maraynin. sidoo kalena waxa suurtagelinaya arrintaas waxay tahay smart contract oo isagana ah in maxaa la dhahaa heshiisyo la qoro ama code la qoro. codekaasna hadhow maxaa la dhahaa if and then ah, kadib codekaas wixii ku qornaa mar walbaba ay dhacayaan oo aanan waxba laga bedeli karin. taasaa suurtagelishay. sidoo kalena waxaan sheegnay in uu qayb weyn ka ahaa decentralized exchange-ga, inay qayb weyn ka tahay horumarka financiga ee decentralized-ka ah, oo decentralized financiga inay qayb weyn oo muhiima iyadana ay ka tahay. haddaba haddii erey bixinadaana hadda soo sheegnay dhammaan mid ka mid a ama waxyaabo ka mid a aadan hore u maqlin, waxaa dib ugu laabataa fiidiyoyadeena oo aan uga soo hadlaynay maxaa la cryptocurrency-ga dhammaan. haddii aad wax su'aal qabto xagga hoose noogu reeb ee commentiga, casharada xiga haddii alla idmo insha allah uga soo jawaabi doonaa su'aalahaaga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.